transformation formula maantana waxaan ka hadlaynaa transformation of complex formula. Transformation complex formula waxa weeye markaad haysatid formula isku dhafan saad uga soo bixin lahayd xaraf ku dhex jira xaraf kaasaad uga soo dhiraandhirin lahayd oo horgaro uga dhigi lahayd ayaanu ka hadlaynaa sidaan casharada horeba aan uga soo hadlanay. marka haddana waxaan haysanaa tusaale ahaan waxaan haysanaa formuladan oo ah c waxay la mid tahay 2 by r ka r baa lagu yiri soo saar. formuladan waxa weeye goobada inay goobaan haystaa wareega goobada radius waa intan waa radius goobada radiuskeeda oo r ah saan usoo dhiraandhirin lahaa kan waa wareega lagu helaa sidaas. marka byna waxay la mid tahay 3.14 amase waxa loo yaqaano 2 divided by 7. marka artaas aan soo dhiraandhirin lahaa taas muhiima kaasaan usoo artaas aan heli lahaa. marka artaas wax kale kuma helayo 2 by aan dhinac loo qaybinayo waxaan odhanayaa xagan waxaa qaybsaa 2 by xagan waxaa u qaybsaa 2 by 2 by inay 2 by waa iskoosanayaan. marka meesha waxay u saartaa c waxay la mid tahay 2 by waxay la mid tahay r. marka sidaa yaroo fudud baan ku helayaa markaan doonayo r taasaan ku helaa. mar haddaan aan formula r helana saa le keliya usoo dhiraandhirinaa. marka saasaan ku helayaa. marka wareeg waa intaas formuladiisa iyo r taasaan ku heli karo markaan r laga doonayo. marka tusaale kale haddaan bixino oo haddeer aan ahno b taasi waxay ahayd wareega haddaan ka sheeg aanu raadino areada kasoo qaad areada waxaa lagu helaa by r square. marka square baa hadda la soo dhigay tusaale waxaa lagu yiri waxaa soo heshaa r taas la yidhi soo waxa ka dhigtaa subject of formula oo r taas horgale ka dhig. marka sidii hore hadda aan oo kaloo kale marka horeysa byda waana iska saara byda xagan by u qaybi xagana by u qaybi marka hore. marka bydan waa iskoosanayaan meesha maxaa igu soo haraya area loo qaybiyey by waxay la mid tahay r square. marka r square tan saan square taas iska saar lahaa waa muhiim inaan ogaado. marka laba dhinac square root baan gelinaya sababtaan u gelinayna wax kale maaha square root-ka wuxuu la mid yahay half. marka half haddii lagu dhufto r square labadaas la baxay sababtoo ahna waxa weeye half haddii lagu dhufto labo waa laba loo qaybiyay laba waxa kasoo baxaysa hal halkiina r taas ku dhacaya kadibna r baa soo haraysa. maadaama r kale soo harayso marka dhinacan waxaan gelinaysaa saan labadaas iska saaro square root xagana square root baan gelinaya xagga square root ku joogaya xagga laakiin square root labadaas la baxaysa. marka sidaa awgeed xagga waxay soo haraysa square root area loo qaybiyey by waxay la mid tahay r. marka formuladaasna waxaan ku helayaa r radiuska loo yaqaano markaan raadinayo. marka muhiimadda waxa weeye inaan square root gelin karo saan magaranaysaa aan iska saaro labada la socota r taasaa muhiima. haddaan tusaalayaal kala bixino oo ku saabsan square root-ka oo aan si ay u shaqeyso square root-kaas magaranaysaa aan tusaale kale ka bixino tusaalahaan waxaan haystaa waxaa lagu yiri waxaa soo saartaa y-daas y square soo saar. marka y square tan saan soo saari karaa y square waxaa la socotaa x square garaysan baa la socotaa waxay la mid tahay marka x la square lagu daray y la square waxay la mid tahay l square. sidaa awgeed y-dana la weydiiyey y-da saan usoo saari lahaa waa inaan iska saara marka hore x-daas aan iska tirtiraa aan dhinaca kala geeya. sidaa awgeed casharada hore kusoo sheegnay haddii aad fahmin casharadii hore soo daawo kadibna casharada daawo markaasaad fiican u fahmaysaa. marka waxaan iska saarnaa marka hore xada marka lidkeedaan magaranaysaa ku darnaa maadaama haddeer xadu minus plus tahay ku dar tahay waan ka jirnaa xa baan ka jirnaa laba dhinac waxaan xa la square gareeyay oo laga jaray xa la square gareeyay oo lagu daray y la square gareeyay waxay la mid tahay l la square gareeyay oo laga jaray xa la square gareeyay. labadan way isla baxayaan y la square gareeyay waxay la mid tahay l la square gareeyay oo laga jaray xa la square gareeyay. marka laba dhinac square root baan gelinayaa dhinacan square root baan gelinayaa dhinacanna square root baan gelinayaa. marka dhinaca square root-ka oo labadaas iga saaraysa waxaa la soo haraysa l la square gareeyay sorry
oo laga jaray xa la square gareeyey oo square root dhigay marka waa inaad ogaataa micnihii square rootku inuusan ka baxayn dhinacan esha iyo dhinacan in la square gareeyey xa la square laga jaray xa la square gareeyey sababtoo ahna way kala jiran yihiin waxaad ogaataa epsilon y-du inaysan la mid ahayn il oo laga jaray xa inaysan la mid ahayn marka waa inaad taa ogaataa laakiin square rootku uu la soconayo magaranaysaa square rootku mar walba uu ku jiriso sababtoo ah way kala jiran yihiin marka haddaan tusaale kala bixino oo aan nidhaahno tusaale kale oo ku saabsan square rootkaas oo aan ka gaarsin tusaale kale tusaalehaan waxaad haysataa f waxay la mid tahay xa oo loo qaybiyey k oo la square gareeyey waxaa lagu yidhi waxaa soo saartaa xadaa soo saar baa lagu yidhi tusaale ahaan marka xadaasaa ku saari kartaa xadaa soo saar baa lagu yidhi tusaale marka waxaa ku saari kartaa marka hore square rootka inaad ogaatid inay tahay inuu ku jiro xadaas square root ku jiro sidaa awgeed waxaa odhanaysaa marka hore square root haddaan intan ka saarno efta square garoobaysa because of haddaan tan square root ka saarno tan square rootkaas la baxaya eftana square root magaranaysaa square bay noqonaysaa iyada marka f la square gareeyo waxaa la mid tahay xa oo loo qaybiyey k sidaa awgeed xaggan hal baa u qarsoon marka cross multiplication waa isku dhufan karnaa micnihii hore kusoo baranay micnihii cross waa isku dhufan karnaa xisaabtaas marka kdan waxay ku dhacsaa ftaas waxaa noqonaysaa f square gareeyey oo k waxaa la mid tahay xa marka xa saasaan ku heli karaa because of xada taa ku dhacso marka taasna saasaan kusoo dhiraadhirin karaa marka micnihii xarf walba aan doonayna saasaan kusoo dhiraadhirin karaa casharka ku saabsan oo magaranaysaa